oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada sheeko cusub iyo waqti kale cusub. Haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe dheh, like na saar lana wadaag asxaabtaada. Nin badow ah oo dhowr sannadood magaalo ku noola ayaa qolooyin qaraabadooda ay casuumeen oo cunto kala nooc u keeneen. Markii bariiskii iyo hilibkii la isla dhacay ee laga haagay haqabtir ahaan ayay u soo dhigeen macmacaan ay ku jiraan nooca loo yaqaano chili. Sidaynu ognahay chiliyadu way yara dhaqdhaqaaqdaa xataa markay iska taallo oo waxaad arkaysaa sidii baruur jaas ciyaaraysa oo dubaaxinaysa. Dabadeed waxaa dhacaysa in mar walba ninkii ay qoladii qaraabadu yidhaahdaan war bal cun alaabtan macaan, mar walbana isagu wuu isku dhaafinayaa isagoo leh waan u iman doonaaye hortaan hilibka ka haago. Markuu hadalkaa leeyahay ilqoodha ayuu ka eegayaa macmacaan sidii inan yar oo intuu bisadu ka baqanayo ay guriga u joogto oo la yidhi wax cun. Haddana uu iska dhagamaray isna dhaafiyey oo hadalkiisii sii watay. Markii dambe ayay qoladii waxaa suutay ka hadhi weyday oo ay ku yidhaahdeen war waa fitamiin midhan cun. Dabadeed inta uu si niyada u soo booday ayuu yidhi war isagaa isku taagi lahaa fitamiinkiisa bahalka macmacaan lahaa inay dhaafiya. Daawade sheekadan waxaad u isticmaali kartaa dhowr siyaabood, sida adigoo lagu tusay nin taajir oo lagu yidhi waa ninkaas, laakiin ay darxumo iyo dhar jeexjeexad ay ka muuqdaan. Markaasaad odhan kartaa isagaa isku taagi lahaa taajirnimadiisa ee ninka i weydaariya hadalkiisa. Muuqaalka